فاكتب له يا ربي كل مسارتي تنسيه ما قد مر من أحزاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal soo dhawaada meel walba joogtaan walaalahayga qaaliga ah maanta waxaan idiin wadaa maadaama uu winter yimid oo saan u ognahay maaragtay qabow badan uu soo socdo ilaahay hanoo kala yareeya ilaahay baa og laakiin yacni waa winter waa iska taqaanaa wax walba ka filo marka walaalyaal maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo yacni sidaan qabowga iskaga difaaci lahayn especially dadka lugaha maaragtay rheumatismka hayo ama laf xanuunka qabaan ama uu dhibayo maaragtay hiidka badan ee guryaha xilliga la daarto waad ogtahay maanta dhan on and off baa maaragtay hiidkii lagu hayaa maba damiyaba subxaan allah maanta dhan hadduu kululaadana waa dami hadduu maaragtay qabow aad rintidna waa dami marka ma jirta xal u dhexeeya intaas oo maaragtay maxaa yacni dad baa waxaa jira dareemaya maaragtay san qallayl dareemaya ayaga dhan jirku xanuunayaan yacni markay kululaadaan jirkiiba xanuunaya qabowgii jirkiiba xanuunaya meelna uma adkeysan karaan marka maxaad samaynaysaa yani maxaad samayn kartaa marka taasoo kale kula gudboonaato marka wax walba alxamdulilah ilaahay xal buu keenay الله سبحانه وتعالى يعني حلبة جراء يعني مركا إلهي ما أرتي بانكو حمد نقينا تاس مركا ولا ليال you are not alone ما أرتي أديك أرنتان كليكم تيد والقولة وذا قباع مركا ما شاء الله مركا ما تقول الله يقول حربا هكذا أنه قفا أيديو أنا قو أنسميو وأن أهدي ما شاء الله تبارك الله وقفا إيدي مركا فائدة داس محي تاهي maadaama aan waxaa jirta hiidkii weynaana uu ku dhibayaa qabowgiina iskuma dayn kartid marka waxaad soo gadanaysaa bahalkan la yiraahdo humidifier oo maaragtay yaroo korontada la gashto oo maaragtay hawadana kuu nadiifinaya hawada kuu nadiifinaya adigiina maaragtay kuleyl yaroo fiican buu ku siinayaa marka waxaa jira kuwo qabow ah humidifier oo cool misty ah iyo humidifier oo yacni warmka ah oo kuleylka yacni yaro leh marka maasha allah kaas mar xilliga winterka ah waxaad soo gadanaysaa ka maaragtay warmka ah warm mistiga ah marka waad daaranaysaa biyaad ku shubanaysaa maasha allah qolkaagii wuxuu isku bedelayaa inaba caadi maaha yani lagama sheekeyn karo meeshii aad ka dareemaysay maaragtay dhiig fadhiistay ama dhiigoo kugu karay waxaad dareemaysaa maasha allah jawi aada iyo aada u fiican oo u degan oo maaragtay aada la qabsan kartid ku seexan kartid aan wax dhibaato ana maaragtay aan jirin maadaama maaragtay yani habeenkii oo dhan qofkii qabow iyo kuleyl buu ka fakaraya hiidkaas madaxa kugu dhufta marka sometimes sanka kaa qalajinaya adiga dhan xaalad kale ku gelinaya marka walaalayaal qof walba waxaan kula talin lahaa maasha allah oo ka cabanaya dadka hiidka dhibaan bahalkan hiidka la yiraahdo ee guriga lagu daarto dhibayo ama aan u adkeysan karin hiidka kuleylkiisa inuu bahalkan soo dhigto guriga summer time-ka waad iska dhiganaysaa meel baa dhiganaysaa winterkii la soo baxa maasha allah noloshaada dhan waxaad ka dareemaysaa isbedel weyn waayo hadduu jawi ku fiican yahay yani bahalkan wuxuu ku fiican yahay oo kale fadhiga haddaad soo fadhiisatid waad soo dhig waxa weeye waa bahal meel walba loo qaadan karo ma aha maaragtay wax hal meel iska yaala marka fadhigaad soo imaanaysaa adoo fadhigaaga iska fadhiya ayaa maaragtay miiska cuntadoo kale ama miisaska yaryar ee bahalka dhinaciisa meel ilmaha ka fog oo kale oo aan isku soo ridaynin ama kaa daadinaynin biyaha iyo waxaas baad saaranaysaa meel safe ah oo ilmo ka ag dhaweyn يعني ilmahan xataa wax ma yeelayo laakiin dee biyuhu inay ka daataan ma fiicna marka baalkaneeto halka miiskas ka saaranaysaa ama meel sarad yara saaranaysaa maasha allah qolkaagii meel walbaad fadhiisatid waa kuu kulay fadhigii waa kuu kulay qolkaagii baad ku noqonaysaa waa kuu kulay
haddaad istiraadi waad ku yara gubato yacni waadi qolkuu jawigiisu ku fiicnaaday aad isleedahay sidan waa si heer sare ah waa iska daminaysaa dhib ma laha on and off button buu leeyahay max iyo minimum buu leeyahay yacni meel laga gaabsado iyo meel dheer aada looga dheereysto marka adiga settingkaad geysanaysaa qaybtaad rabtid ama wax maaragtay medium setting baad geysanaysaa ama maxkaad geynaysaa oo haddaad rabtid high heatkoo kale aada meesha u kulul marka maasha allah lagama sheekeyn karo dadka samboorka qaba aada buu ugu fiican yahay ilmaha yaryar oo maaragtay caburka ku jiro oo neefsan karin habeenkii markay seexdaan oo kale aada iyo aada buu ugu fiican yahay maasha allah tabaaraka allah qolka especially markuu hadduu qolku kaa yaro kulaado ilmaha dhowto waad ka yara damin kartaa marka waxaa kaloo jirta bahal la yidhaahdo essential oil oo yacni essential oilka oo maaragtay waa sid maaragtay bahalahan dhala yaroo ay oilka ku jiraan oo saliida yaroo maaragtay caraf miiran ah oo aada u yaryaroo gaagaaban oo laisku gado sometimes hal xabaad gadan kartaa iyagoo jumlad yar baad gadan kartaa oo dhowr xaba ah amazonka laga helaa kuwaasna waad soo gadanaysaa waad ku dhibicsanaysaa meel waxaa jirta lagu dhibicsado caraf buu ku noqonayaa qolkii sankaaga xidhnaa wuu ku furfurmayaa haddaad jeceshahayna fix baad soo qaadanaysaa bahal yaroo fixka ah iyadana meel baa jirta iyadana lagu talagalo fixka la geliyo oo yacni fixka iyadoo bokad ah jirto lagu gado walmartiga walgreenka wal cvska any drug storeka waa laga soo gadaa targetka dadka maraykanka jooga ama canada iyo yurubna health storeka waa laga helayaa iyo dukaamada dadka adeegataan dukaamada drug storeka oo maaragtay lagu gado waxyaalaha dawooyinka iyo waxyaalaha maaragtay caafimaadka ku saabsan iyo kiniinada iyo lagu gado meelahaasaad ka heli kartaa drug storeka marka maasha allah tabaaraka allah waxaan ku dhahay bahalkaas wax weyn buu kaa bedelayaa walaalayaal maasha allah ka war doona haddaad rabtid yani waxay ka mid tahay aniga markaan wax idiin soo gelinaya halkan iskama soo gelinayo waxa weeye waxaan usoo gelinaya waxay tahay wax walban isticmaalaya inaan idiin soo geliyo maadaama aad rabtid qofkii inuu caafimaadkiisa wax ka bedelo ma fahamteen marka haddaad maaragtay stepka ugu horeyso aada qaadsid aad naftaada aada caafimaadkaaga ku dadaashid wax walbana ku hagaagayaan waadna maaragtay guuleysanaysaa waad caafimaadaysaa maasha allah marka always videoyadan aan idiin soo gelinaya waxaas oo dhan waxay tahay inayna noqonin yani just waxaan iskaga sheegayo ama aan maaragtay aan leeyahay hala ii daawado view baan ka doonayaa ama subscribe baan ku raadin no waxa weeye aniga waxaan rabaa dadka walaalahayga ay jiran ama kuwaan jiraneyn maaragtay u baahan runtii waxaa jira dad badan oon jiraneyn oo u baahan alaabtan oo hiidku dhibayo oo qabowgu dhibayo marka kuwan oo kale aan ku talagalay inay dadka ka faa'iidaystaan dadka walaalahayga meel walba joogtin maaragtay Soomaali Maxamed inaa idinka faa'iideeyo dadka jirana inaan u faa'iideeyaan aad u jecelahay iyadana waayo maaragtay dee waxa weeye xanuunka qofku markuu xanuunsanayo waxyaalo badan buu isleeyahay ma heli kartid buu isleeyahay laakiin waad heli kartaa haddaad dadaashid naftaada u dadaashid oo naftaada waxay la qabatid waxaan maaragtay hubaa inaad meesha rabtid aad gaaraysid insha allah oo aad dadaashid dadaalku aday kugu xiran tahay dadaalku aniga iguma xidhna inaa adi wax kuu sheego ani aan just like wax lay kuu sheegayaa aniga wixii aan maaragtay qofka aan ama aan isleeyahay walaalaha ugu faa'iideeya wixii aan maaragtay markaas aan isleeyahay maaragtay dadkii ugu faa'iideeyaa laakiin adiga ayaa maaragtay kugu xiran tahay dadaalkaagu inta siduu noqonayo waayo adiga weeye qofka maaragtay talaabada qaadayo rabta naftaada inaad caawisid marka walaalayaal insha allah maanta taasaan idinla qaybsanayaa humidifierkaas ka war doona maasha allah tabaarakallah bahal aada u fiican weeye hadda intii muddo aan isticmaalayay maasha allah qabow walba yimaada yani waan daartaa markaan xoogaa qabow dareemo xataa roobka because sometimes roobka markuu yimaado jirkaaga waxa dhiigaaga qaboobaya yani jawiga markii ay noqotaba inuu yani jawigu isbedelo dhiigaagii baa yara qaboobaya waad iska garanaysaa marka maxaaba dee lagu xanuun iyo wax kuusoo arkay
haddii uu dhiigu ku farfadhiisto laguha ogow inay laguhu ku xanuunayaan oo ay looyadu ku xanuunayaan oo gacmuhu ku xanuunayaan qoorta xitaa sometimes dadka dhabarka qaba xanuunka waxaas dhan waa laf wey laftaasi hadday daciiftana dee waxa wey xanuunka uu ku qabanayaa oo waa iska daciif marka waxaa la rabaa meelaha daciifka oo dhan in la caawiyo naftaada marka walaal ka taxadara jirkiina always u dadaala naftaada u dadaal haddaadan naftaada u dadaalin qof kale kuuma dadaaliyo believe me adiguna waxaa laga yaabaa inaad hooyo tahay inaad aabo tahay inaad gabadh maaragtay reerkooda sugaya tahay marka haddaadan istekergaraynin oo maaragtay u diyaargaroobin xilliga qaboobaha waxaa rabaa inaad qaboobihiina u diyaargaroodid summer timekiina u diyaargaroodid marka yacni subxaan allah summer timeka isagana dhibkiisa ayuu wataa because qaboojiyaha dadku ay dhibayaan iska daciifka ah ama maaragtay dhiigoodu markiiba dadka dhexmooda oo kale ayaguna dhibkaas oo kale ay qabaan marka wax walba solution bay leeyihiin wax walbaba oo ilaahay keenay daway leeyihiin taasna ogaada just waxaa loo baahan yahay inaad dadaashid uun marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videogan within maaragtay informationkan aad maaragtay waxtar uu idin yahay teeda kale labaad waxaan walaalaha ka codsanayaa I know xataa adinka haddii aydan jiranayn waxaa jira dad kaloo walaalo kaloo jiran qof walba waa laga helayaa family walbaba waa laga helayaa qof ama maaragtay ama xataa familkaaga hadday haneen friendkaaga ama neighborkaaga ama maaragtay yacni usii gudbiya walaalayaal si ay uga faa'iidaystaan waayo informationka waxaa laga yaabaa inayna helin dad kaloo maaragtay informationkaas siiya marka usii gudbiya walaalayaal haddaad ogtahay inuu qof rumatiisan qabo ama qof xanuunsanaya uu jiro usii gudbiya si uu uga faa'iidaysto ajar baad adiguna ka helaysaa marka insha allah biidnillaah iscaawiya ilaahayna wuu idin caawinayaa marka walaal intaasaan idinkaga gudbiyaa caawa intaas maanta marka insha allah waan idin salaamaya meel walbaad adduunka ka joogtaan haddii aada nagu cusub tahay insha allah nagu soo biir haddii maaragtay aada horey noola joogtayna daawasho wacan walaal insha allah khayr baan idinka tegayaa iyo maaragtay iyo caafimaad insha allah next time intaan iska arki doono aan video kale idin soo duubi doono haddii alla yiraahdo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu